magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya laba jeer maanta waxa ay israasaaseen ku dhaxmartay laba ciidan oo kamid ah kuwa ammaanka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaanka u geysay ciidamada maamulka Ahlus Sunna. ciidamada dagaalamay waxay u badnaayeen kuwa ilaalo u ahaa guri ay degan yihiin saddex mas'uul oo ugu sareysa maamulkii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya sida Maxamuud Sheekh Shaakir iyo sidoo kale mas'uul kale. marna waxaa la sheegay in israasaaseen laba ciidan oo dawladda ka tirsan oo qaarkood ay ilaalo u ahaayeen senator kamid ah xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay waxaan ka wareystay wariyayna Maxamed Cabduuli Tuxu. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug adiga fiidkii hore maray ahayd abaaro adiga 7 ilaa markii salaada adiga cishaa markii la aduumi rabay ay ahayd ayaa waxa ka dhacday israasaaseen u dhaxaysa ciidamo u watay senator dhagay iyo sidoo kale ciidamada ilaalada u ah hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ku sugan xarunta Inji. dabcan sida wararka aan ku helayno waxay noo sheegayeen in la kala shakiyay oo xoogaa meesha hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay degan yihiin ayaa waxay tahay meel laamiga u dhow oo baabuurta ay maraan kadibna halkaas rasaasayntu ay ku dhaxmartay labada ciidan. markay dhaxmartana isla markiiba magaalada Dhuusamareeb waa laga dareemay oo dhawaqa rasaasta la maqlayay. sida wararka aan ku helayno waxay sheegayaan Xuseenow in hal askari oo kamid ah ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ku sugan xarunta Inji inuu dhaawacmay sida qaar kamid ah saraakiisha Ahlus Sunna oo xiriir kala duwan la sameeyay inoo sheegeen. kadib waxa dhacday taliyaha booliska Dhuusamareeb Cabdillaahi Madoobe baabuur uu watay oo meesha soo marayay ciidamada u saarayay sidoo kale ciidamada ku sugan Inji ilaalada Ahlus Sunna ayaa hadana israasaasay oo sida la sheegay gaariga taliyaha inkastoo wax dhibaato aysan gaarin laakiin uu ka muuqdo rasaas aad u fara badan oo dabcan lagu riday oo ku dhacday gaarigii oo qaarkood gaariga waxyaabo kala duwan ay ka soo gaareen. marka jooga hadda waa degan yahay oo ku hadlayo inkastoo laakiin Dhuusamareeb caawa laga dareemay israasaasaynta dhaxmartay labada ciidan ee ilaalada kala ah ee dhigay ciidamada watay ilaalada u ah senator dhigay iyo sidoo kale hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ilaaladooda gaarka ah ee xarunta Inji ay kula jireen. marka waxa sababay ilaa hadda ma loo geen laba jeer magaalada ay israasaaseen ka dhacdo. waxa sababay waxay dadku ay sheegayaan Xuseenow magaalada markii uu imaanayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wado walba soo gashay Dhuusamareeb waa la xiray xitaa magaalada control aan la dhigi jirin baa la dhigay caawa ilaa maanta iyadoo markaasi dabcan ciidamadu ay ammaanka adkeynayeen. taas ayaa kaliftay in meel walba la xiro sida wararka ay inoo sheegayaan. dabeedna meelo kala duwan oo aan la dhigi jirin control ayaa ciidamada dawladdu ay dhigeen oo ay markaas ka agdawaayeen ciidamada Ahlus Sunna oo hoggaanka Ahlus Sunna ay ku jiraan. Maxamed Cabduuli Tuxu Dhuusamareeb ku sugan ayuu kaasi saaxiibayaal markana